hooyo haddaad dul istaagto hooyadan waxaa saboorta u ah ninkaan cid kale oo saboorta u ah male ilmuhu dheeryana waa ka keenay waxay la tahay liheeda haddaad fiirisaan waa anemi dhiigna waa soconaya ugu yaraan hadda 5 ku jiro mana awoodi karo inuu mid kale kusii shubo ummadda hadda intiinaana haddaa ugu deeqaysaa dhiig adigu madaxweynaha iska bilaabaysa maanta bilaa transmission waa ku baaraya inaad tiraad maanta donation anaa ah oo gabadhaas dhiig ku shubay inaad u shubto بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bishii 3aad 2019 maalintu ay tahay axad waxa cusbitaalka weyn ee magaalada Garowe nagu soo booqday madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdilaahi Dani booqashadaas oo ujeedadoodu ahayd u koorgalka xaaladda cusbitaalka magaalada Garowe runtii booqashadaas si fiican bay u dhacday waxaanu meesha ugu tagnay shaqaale runtii aad u dadaalaya oo iyadoo ay ku sugan yihiin marxalad aanay sometimes ama mararka qaarkood helin qalabkii ay u baahnaayeen ee ay adeega ku bixin lahaayeen haddana dadaalayo runtii dadaal badan ka muuqdo si ay dadkooda ugu adeegaan oo u siiyaan adeeg caafimaad shaqaalahaas aad baan runtii ugu mahad celinayaa waad la socotaan oo cusbitaalka ama dhakhtarka Garowe waxaa la dhisay muddo hore xilligaas magaalada Garowe way koobnayd dad yar baa joogay cusbitaalkeena wali intiisii buu leeyahay magaaladiina waxaa laga yaabaa ama 10 laab ama 20 laab inay korodhay oo dadkii farabatay cusbitaalkaas marka baahiyaha ka jira ayuu madaxweynuhu indhihiisa ku soo arkay annaguna aan ku soo aragnay cusbitaalkaasi runtii wixii uu u baahnaa waan isla soo aragnay waana soo aragnay inuu u baahan yahay in la weyneeyo waxyaalo fara badan adeeg fara badan lagu daro dhismo ahaan la kobciyo shaqaale ahaan dib loo eego oo reform lagu sameeyo waxyaalahaas oo dhan waxaanu rajaynaynaa muddooyinka dhow inaanu qabanno oo hawlahaasi waa hawlaha noo yaala ka wasaarad ahaan iyo ka dawlad ahaanba insha Allah si dhaqso ah baan hawlaha u qaban doonaa waa ku mahadsantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh